السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تبغى أنا وناقصني دي هذه بأخيات غالية مكتوب على ساكت شوكتان ولكن هالأمر عوي بلو وحن إذي هيا هو يدي تري أنا تودو كانسر ما قبته إن أنا تحنوصنا يسا كانسر كاسن حليس ويا إلهي بكبد بعد شيء حالات كلو حليس أي كوسا بحضي أو أي قبته أنا تاسي وحي برا بشدو كوفا في ساي مقال أي ديك تفايسا أما ديك أي متاجيسا هذا بقى waxa sharmaake hiil walaal markii weynanta u baahiyay caawimada dhakada ay ka saartay maamada dhashay muniira yar oo ah hooyadeed waxay dusha ka saartay qamar sugaani iyo sidoo kale to sharmaake hiil walaal in ay yihiin burcad ku adeegsanaya kuna maxaafsanaya inateeda sharmaake hiil walaal waxa uu sheegay maadaaba lagu eedeeyay inuu yahay turufayste ku qalaabta dadka xanuuna aan lahayn u saadiya isagoo shilimaad ku raadinaya taas oo uu jeclaystay sharaftiisa marka koowaad inuu badbaadiyo isna baraxo halka uu ka taagan yahay waxaana uu yiri muniira hadii ay xanuun qabto waan idii soo bandhigi hadaanay xanuun qabina waan idii soo bandhigi bartaasana ka bixi hadii ay caafimaad qabto waan idii sheegaya waxaan ka ogahaynaa ma jirto boqolaal qof baa noo imaado oo xanuunsanaya dhakhtar ma geyno ma baarno ilaahay dartii baan ku aaminaa ilaahay dartii ayuu muniira ku aaminay sidoo ka dhawaajiyay sharmaake walaal hadaba sharmaake dhakhtar buu geeyay muuqaalka ka horeeyay waxa idii soo bandhigay iyagoo dhakhtar geeyay oo inta xaaladeeda dhakhtarkaas la jooga xaaladeedana doonaya inay kaga warbixiyaan hadaba dhakhtarkii jawaabaha uu soo bixiyay ay sharmaake walaal bartay noogu soo bandhigaya sidoo kale sharmaake walaal waxa uu dhaar ku maray afkeeda waxay iga tiri ilaahow hadda been sheegay caafimaadka aan maanta halkan ku hadlay Allah iga qaadanaa been sheegay hooyadu eriya ay ku tiri oo caloosha ay iga xanuuni doonto maxay yihiin eriyadaasi si kastoo ay haataba bal muuqaalkan ila daawada soo ahaa in ay ku sheegeen cudurka kansarka wad ogtiin dhakhaatiirtu waxyaalo badan bay sheegaan laakiin dhakhtarkan Etoobiyaanka wuxuu noo sheegay cudurka inuu kansar u ekaa dhuunta calooshana ay qayb dhan dilacsan tahay dhuunta tuubada cunnada inay dilacsan tahay misna ay dhiig tufayso sababta dhiig u tufaysa waxa kamid ah dhuunta dilacsan waa runtii dhakhtar waxyaabo kala duwan bay sheegaan waxa jira wiil aan walaalnay dhakhtar kastaan u geynay gaastri cirkaas ay maraysa kiniinaan ku gurnay baa la baaraa gaastri meel halis ay maraysa gaboosaan u keenna wallahi inaan been idii sheegay markay hooyo iyo reerkii ay kala qoosteen kiniinadii gaastridana laga dhaamiyay ee aanu xaaladiisa fahmi weynay baan gabooso u keenna waxaan marnay checking good gabooso wuxuu ninkaas nimir ma qabo gaastri baanu qabin cididaas aanu qabin kibir baa haya ninkan stress baa dilay farax oo qosol ku dhaw dadka dhaxkal waa ninkan walaalahay saasa lagu soo yiri xanuun ma qaba baa leeyahay hadaba dhakhaatiirtu waxay doonaan bis ka oranayaan waayo boqolaal arrimada mararka qaar caafimaadka Soomaaliland waxaad nacaysaa marka aad xanuunsato ama xanuun kugu dhaco ama faamiliga qof kamid ah xanuunsado ayaad nacaysaa oo ogaanaysaa inaan dhakhaatiir jooginba ee Soomaaliland aadna dhakhaatiirta uga liitaan waxaan arkaynaa maalin walba dadkeena madaxda ah oo xanuunsan iyo qurbaha loola cararayo Jarmal buu tagay dhigaysa waxa leeyahay Malaysia tagay Hindiya tagay Ethiopia loo qaaday boqolaal meelood oo kala duwan baa la geeyaa oo fara badan oo caafimaad ahaan loo geeyaa marka xagga dhakhaatiirtu way ka liidanaa waana runtii taas way dhacdaa inay waxyaabo kala duwan dhakhaatiirtu soo saarto una baahan tahay xaalad degdeg ah in wax looga qabto wakaas been ma sheegay kombiyuutarada waa kuwa dadkii yaqaana qofkii tagi kara cusbitaalka magaciisa wakaas halka ku qoran waa tagi kartaan qof kasta oo baahan cadeyntiisa soo ogaan kara waalidka dhalayna waa u sheegay hooyo waa la hadlay si naxariis leh waa u la hadlay wax kasta waa ku iri inta hooyadeed buu la hadlay si naxariis leh hooyo u la hadlay hooyo si naxariis aan loola hadlaa beena maaha sharmaake walaal mashaki bay diga jireen inuu yahay qof dadka samafal u sameeya aan wali qaladaad iyo foorxuma aan lagu arag shaki bay diga jira waa maya ana shakiga ma jiro idimana afduubaya idinka fikirkiina leeyahay marka balayno eegno waxay hooyadu ku tiri maxay ku tiri afkeeda waxay iga tiri gabadheeda anaa guriga ka ceyri maxaad ku daba dhigay ilaahow hadda been sheegay caafimaadka aan maanta halkan ku hadlay Allah iga qaadanaa been sheegay gabadheeda anaa guriga ka ceyri bay tiri waa ogay caqabado badan baa kala kulmay aniga shakhsi ahaan horta ku dambaabi maayo laakiin labada qof marka sidaa u eegay aniga markiiba waa waalid waxaan ka xishoday in waalidkaasi eriyadeedu been bay la muuqdaan
anoo waalidnimo ku ixtiraamaya laakiin inanta yar iyo hooyada ma kan eegay aniga labada midna waalidii ma hadde laakiin iyaga waalid isku ah marka inanta yar eegay hooyadana eegay waxa aniga ila qumanayd inanta yar bay la qumanayd runta maga ka hadlo laakiin waxaan ka qajilayay ka xishoonay afkayguna mari kari waay hooyadani waxa ay wadaa dulmi haday dulminayso iyo hadaan dulminayna iyaday u taalaa oo ilmaheedii yahay laakiinse sharciyan ilmaheeda haday qaldan tahay kif ay ku wado waa loo xidhayaa maxkamaddu walla sirajooga lagu xukumayaa waxaana weeye 6 bilood baan ku ogaa waalid caasi baa la qodobka waalid caasinimada sirajooga weey laakiin haday tiraado maanta waan xidhayaa oo ilmaha ay leedahay waan xidhayaa waalid caasinimo ay ku sheegto uu xanuunsanayo sharci waxta xili ma ilmaha yar xanuunsanaya ad waalid caasi ku sheegtay ilmaha gadaweysa ama nagala tag baa lagu oranaya ma garanaysaa marka hooyada sharciguna uu ka qabanaya reerkooda iyo abtiyaasheeda rideedna way joogan way ka qaban karaan marka hooyadaasi ayada saxid badan u baahan anaha ku sii fogaan maayo wax kasta dhici kara laakiin markaan labadoodaba dhageystay labada muuqaalina tayar iyo hooyadaba aniga waxay la qumanayd tayar bay la qumanayd imikana sharmaaka dhaartiisa waan ku qancaynaayo bal dhinaca kale way ka warsi gudana iyaguna waxay raadaano iyagana waa suuragal inay wax inta ka weyn iyaguna ay keenaan شيء كتب مسه استاي كتب بالويل كنت أنا مشي كتب هويا تهاي ما أنت وحبك بقرايو وحبك به مايو وايو هويو وهويو لكن الصومالي وحيدي شيء كبدا يرتع حتى عاول هيدين هذا برته وقت عاقل هيدين با أنا حدي هويدين فاميلي جدو أي رالي وقول نقدان إن أنا عاويو ديار بانو هاي أنا نبلش العقل كأورورين أرنك كلا منير الشري أيضا صعطي إيتري أيضا صعطها بيتري عاوي ما أنتنا وحكا استعدينتي ده أيضا هايستا أي فاميلي جيدو تيسا إنها لله وإنا إليه راجعون أنت صوتها إنا حنون سنة سحنون هايو أنا وحن كو حقيق صدي إنا ير أو يرا أو داها يقرح ذا يرانتا يمستقبل إيفا يأصو بحيا هذا له أنت ميل سوي استبتين حنون كاين تالك ساعة سنة سمرنا بانيكي جميلة داعي إنن ويه عار ويه نين معها دراجة الشيء صخرة الشيء رجع واحد كستاك السورتوبة والله والله يا أبي لها الدنيا لها حيابك لا داشتنا على الله لكن إن تحس أفكي ذا لقاركيا جسمي ذا لقاركيا إنني بالود لهين إن يروم نرش كده عدياني هين إن النور يساء الدائرنا عيت هاي بريدة باهدة إن أنا حتى أوبر واحد كده رميسا حشود إنه كتشو هذا الكي قاب سنة يسا حوية حشودك يحنونك أي شيكتي ما كان وحى صدان آغاي أنا أغلق الوين نقوم ويدي إنه يترعض السيدا هذا هو يدا مركي هذا الشيء إنه تهدو وابين حنون مغبطو قمر سوغاني فنانتو العقب كدونيا ساكل كدونيا ما كهويدو برتا هذا المارس هاي أنا إنه ما دي كراي حوبسطي بحنحي وأيها هدي إنه تهدو بمثل بينتها شيئا طبعا waxaan la inta xanuun ma qabto meeraha la soo dhigay dad banaarkii la aan caawino waxaan oran lahaa halka ha mariyaan laakiin hooyadu waxyaabo badan bay doona tirsanaysaa ay ka mid tahay inay inay fanaaniinta ku dhex milantay oo fanaaniintu heeso la duubto oo fanaaniintu ku dhex jirto oo inay lala yeeshay bay muujinaysaa sida aawadeedna hooyadaas waxay xal ka dhigatayba inay gurigeeda ka buriso xabi taagantahay sidoo sharmaakiil ku dhaarta ku maray inay ku tiriyantay ana guriga ka eriyay ee maxaad weydiinaysaa adigu بري أنا تيجي عندي كلام كحرية سبحان الله وعوذ بالله هدي أرنتا هو يدا سيدا أي كذا بيسا سا وشرماك شيء أي صح نقطة ودارتو دارتي سونا يمسنا ميران دافنا كرن مينه أي كان كور سوينا أما يدا كور سوينا هو يدي وحين نقطة أنت دعوة فالحن أنا هنا وحن يحكي درن بميديا وكسوجي وأنا يشران والدين وبد كود الظلمية وأنا يشران وبد والد كود عاصي كن نقطة والد كود مغلي وايا أنت بويشران أنت بإلهي بالله حسبت مايا وبد كاجا والد والجوي دينيا وبضاو والدين تنادي كنا والد ويدينيا وحن سويدية إن أنت عاصي هو يده هدي والد عاصي كتاعي ما حيقول له ده هو يمعن هدي عن والله هنا كاره يحرق مقف إن أنت دوي الصوح ده بيتري هو يدو وحيقول شكتين أنت هذا منيرة إنه الصوح ده صوح دي ما داسي حنون هالسوي وعورة وإنن هدي الصوح دي ما ده بلوجو جرمدو والله عاويو محل هو يودي ده ساعدوا ده يرسنا يساعدنا تاع الصوح دي وعورة ماشي دون تكون عكرتها ماشي دون تكون صوحي كرتها
ayada laftigeedaba u baahan laga caawiyo hooyada arxan darro badan baan ka dareemayay ka mid tahay inta anigu suuxdin wax yar maaha waa qof dhan waa inan waa caar intii kala dhacday maradu ka dhici karta rasuulka sallallahu alayhi wasallam gabadh baa u timi ay ku tiri ya rasuulallah waan suuxa maraduna way ka dhacdaa ilaahay ii bari inuu ilaahay suuxnimada iga dulqaado rasuulku muxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri inaad xanuunkaaga u samto jannada ku gasho in ilaahay xanuunka dulqaado oo uu samreeday samarka jannada lagu galaa horta inta xorla xanuunka horta u samir ilaahayna ka dulqaado samirkana ku qasaari maysid in ilaahay ku caafiyana waanu kaaga baryaynaa insha Allah ina taayirna bal ha loo gurmado wixii la tari karayana ha la taro moobiladeeda shirkadda Telesom ay saadka ka xidhay kana xayirtay waaya daro kaararkiina dadka macaamiisha ay isticmaala burcad maaha tuuga maaha waa kaarka u furtaantay wad arkaysaanay qofka kaarkiisa uu ku adeeganaya xanuun baa haya dhibaato haysa hooyadu waxa ay sheegaysaa inateeda Muniira inay suuxdimo qabto ha caawiyaan ummadda Soomaaliyeed hortimiye kaarka xayiraada u qaadan la shirkadda Telesom ku ceeboobinaydu kuna aabow ma asatiin bal wixii kale ka soo kordhana way dila soo socodsiin doonaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh